السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وأوجدين شكلي ماشي نمرسي كسي ودنا إن شاء الله. وحنا قادم دونا هاف كان هاف كيس كلا لسه هاف كان هو هاف كي قادني. أنا هدي أو حرت كسر حسنا شكلي الحين نمرسي أنا ماما أوتيس شركة دكتور والله بالله إن قبل قرحنا قولي جوكت قولي شغالة كتهاي أنا بابا أوتيس ماما أوتيس قولي قولي كشقيسو يعني أوتيس سفر دون مركز سفرتنا نين كذا إذا من قبتي سفرتي إن محاك الله ده السنة كول ولين نروح لقبل ده قولي جوكتو شو كل صونة مركز بحيث إذا إن قبل قرحنا قولي وقتكتي ولينا سي سفرتي مركز شركة ماشي نومري الله الصعب waxaa lagu dhahaa ku fikiriya meesan ku fikirin mabaya xumaanto kuhusu ku saabsan mume wake ninkeeda hata mar moja hal mar xitaa sidii loo sheegay marka aragna qaybta kale baba Otis iyo mama Otis lagu dhahay qaybteeda labaad la soco labadooda waxaa loogu magacdaray wiilkooda magaciisa loogu magacdaray saasay u isticmaalaan Kenyaanka mise wadanka hadda aan joogno dad ku nool saasay u isticmaalaan magacaasha marka waalidku waa laga maarmi karaa hebel hooyadiis hebel aabihiisa la kala lahaa marka koow hore dhawaaqa dul marno sida caadi noo ahayd mama Otis hakurudi nyumbani miezi mitano mara moja tu alipokea simu kutoka kwa jirani wake akiambiwa siri za mume wake lakini hakuamini. Alianza safari ya kurudi nyumbani. Alifika bila mume wake kujua. Aliona maajabu katika chumba chake. Na marka Abdul marno macnaha Mama Otis hakurudi meesoo laabanin nyumbani guriga mee ku soo laabanin miezi mitano shambilo. La soo meesha wax miezi mitano loo dhahay hadhow taano hadin miezi taano hadin shambil shan taano way tahay laakiin meeshaan ku xiran tahay wax yaalo hadii lacala dad ay ahaan lahaayeen qof haduu dad badan ay ahaan lahaayeen waxa la ilahay waatu dad wataano shan ah meeshaan waada kormaraysa ilaa meeshaan waxay ahayd waatu hadda mid wax loo dhahayo miezi meeshaan taalo la soco hadhow wax ka horeeyo kula qabanayle hakurudi nyumbani guriga ku soo laabanin miezi mitano shambilood mara moja tu hal mar le alipokea erigan pokea rabna inaan ka hadalno eriga pokea waxa waa helid waaye alipata waa dhihi kartaa laakiin pata telefoon qof marka la soo wacayo uma isticmaali kartid pokea laakiin se goorma la isticmaala hadii waraaq letter lagu soo qoro barua letter la dhahaa bas warqad bashad lagu soo geliyay waxa leedahay nimepokea barua lacag kale hadii lacag la dhaho kale lagu soo diray waa dhihi kartaa waa isticmaali kartaa telefoon oo kala doo isticmaali karnaa marka telefoonaan loo diray u taagantahay hadhow helitaanka pata hadhow meesha gelin mara muddo hal mar le alipokea waxay heshay simu telefoon soo gaaray kutoka waxay ka heshay mise ku soo gaaray kuwa jirani wake dariskeeda akiambiwa ayadoo loo sheegayo sirta za mume wake oo ninkeeda telefoon loo soo diray ya u soo diray dariskeeda ayadoo loo sheegayo sirta oo ninkeeda sirta maxay tahay ma naqaan laakiin hakuamini may amini. Alianza waxay bilowday safar ya kurudi ugu soo laabato nyumbani guriga alifika way soo gaartay bila la'aanta mume wake ninkeeda kujua asigoosan ogeyn bila mume wake kujua waxa la macna asigoosan ogeyn iyadoosan ninkeeda ogeyn ayay soo gaartay. Aliona waxay aragtay maajabu muujiso katika chumba chake qolkeeda gudihiisa muujisada ma naqaano dad waxa arkay arday qaar marka weydiiyo maxay aragtay waxyaabaha ayaga iska macnaysanayana jirto marka sheekadaha oo hadhow waa sheegnay waxa dhahnay waxa ka hadli doonaa wahusika iyo mawduuca ugu weyn oo meesha yaalo iyo wahusikayaas dadka meesha ku jiro ka hadlaynaa dhahnay marka kuwaas falanqeynayno iyo waxa kale oo jiro ayagana wax la dhahayo kinaya waxa waaye wax lama filaan oo dhacay oo kale waaye hadhow wax lama filaanta haddaan waxa dhici doono inay lama filaan noqoto laga yaabo waxaanan anaga filinin in noqoto laga yaabo hadii hadhow lagu weydiiyo marka wax kinaya ah oo sheekada dhex yaalo maxaa waa lagu dhaho waxaas ku jawaabay saas ay tahay hadii su'aal lagu weydiiyo jawaab
teeda inaa kasoo dhex bixiso sheekada dhexdeeda wax adiga maskaxda kala imaatay ma hadhow hadhihin saana dhacday ma ajaabud ee aragtay maxaa hadii lagu dhahay ilaa hadda anaga ma ogin hadhow hadhihin saana dhacday wax adiga iska dhaadhiciso adiga aliftitaas so hal mar aad ku celinayna dhawaaqa nama Otis ha kurudi soo laabanay nyumbani guri kusoo laabanay miezi mitano 5 bilood mara moja tu hal mar le alipokea simu wixii heshay telefoon loo soo diray kutoka waxa uu soo diray mise wuxuu ka telefoonka kwa jirani dariska wake dariskeeda akiambiwa ayadoo loo sheegayo siri sirta za mume wake oo ninkeeda laakiin hakuamini aminin alianza waxay bilowday safari ya kurudi kusoo laabanay nyumbani guriga alifika way soo gaartay bila mume wake kujua ninkeeda ayuusan asagoosan ogeyn bila mume wake kujua aliona way aragtay maajabu muujiso katika chumba chake qolkeeda gudihiis ay muujiso ku aragtay muujisada waa arki doona hadii qaybta ka dambe loogu sheegi doono hadii loo sheegi waayo wili jawaabta ma haysan hadhow jawaabta buuxsan marka cashirka la soo gabeynaa wabillahi tawfiiq